رئيس الوزراء dalka Xasan Cali Khayre waxa uu kulan isugu yeeray golaha wasiirada uu ka dhacay maanta magaalada Muqdisho kulankan uu gudoominayo ama uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha ayaa waxa isugu yimid xukuumadda cusub ee uu soo dhisay dhawaan ra'iisul wasaaraha isla markaana shalay golaha baarlamaanka loo horgeeyay lana ansixiyay Rawda Cabdi Xasan ayaa ka warramaysa kulankan uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa diiradda lagu saarayay arrimo dhowr ah oo horyaala xukuumadda cusub iyadoo xoog la saaray amniga iyo abaaraha sameeyay Soomaaliya kulankan uu qaatay saacado badan ayaa markuu soo idlaado waxa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cismaan Injineer Yariisow Bismillahir Rahmaanir Rahiim maanta oo ay bishu tahay 3 Maars 2017 waxa dhacay shirkii ugu horeeyay golaha wasiirada kadib markii shalay la ansixiyay shirkan isaga ah oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa diiradda lagu saaray arrimo ay kamid yihiin gurmadka abaaraha isla xisaabtanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa ugu horeyntii shirka ra'iisul wasaaruhu waxa uu lagu qaybiyay ajandahaas ka koobnaa soo dhaweyn nidaamka iyo xeerarka uu ku shaqeynayo golaha wasiirada diyaarinta xil wareejinta wasiirada cusub qorshaha xukuumadda ku shaqeynayso amniga iyo abaaraha ra'iisul wasaaruhu waxa uu faray in maaragtay xil wareejinta ay u dhacdo si sharaf iyo karaamo leh oo wasiiradii hore lagula wareegayo xilka isla markaana la qorsheeyay in maalmaha soo socda ay bilaaban doonaan arrimahaas iyaga ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu adkeeyay golaha wasiirada in shacabku naga sugayo sidii dalkan loo sababta bixin lahaa isla markaana lala yimaado howlkar xufnaan iyo shaqo maaragtay ummaddu kalsooni ay ku hesho sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu dheeraaday in loo baahan yahay in wasiiradu ay tusaale u noqdaan shacabka Soomaaliyeed bacdama ay hogaaminayaan wasaaradihii qaranka sidoo kale wasiiradu waxa laga codsaday inay soo buuxiyaan foomam ay ku qoran yihiin maaragtay dokumentiyo muhiim ah oo ka mid tahay anshaxa iyo sidii u shaqeyn lahayn si daacadnimo ah midnimo ah iyo aamin ah sidoo kale waxa laga codsaday wasiiradu inay soo saxiixaan warqad ay ku cadeynayaan hantidooda gaarka ay leeyihiin si hadhow isla xisaabtan u yimaado markii loo baahdo sidoo kale arrimaha laga hadlay waxay ahayd gargaarka abaaraha oo muxuu ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in wasaarad gaar ah loo sameeyay tan oo tusinaysa ahmiyadda gaarka ay xukuumadda siinayso arrimaha gargaarka lagana codsaday hay'adaha caalamka muxuu ahaa iyo hay'adaha maxalliga iyo dhammaan hay'adaha iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka howlgala arrimahan inay si dhow iyo si gaar ah ula shaqeeyaan wasaaraddaas iyada ah si shacabka looga saaro abaaraha ba'ay ee ka jira arrimaha kale amniga ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in waddankan arrimaha ugu horeeya ay tahay amniga haddaan wax laga qabanna aan la heli karin maaragtay gargaarka aan loo gaari karin shacabka amniga haddaan wax laga qabanna aan wax laga qaban karin musuqmaasuqa amniga haddaan wax laga qabanina xasiloonidii iyo nabadeyntii aysan imaan karin sidaas daraaddeed wuxuu ka codsaday wasiirka amniga in uu soo bandhigo istiraatiijiyad heer qaran ah ee amniga si xal loogu helo arrimaha amniga ee jira sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in marxalad cusub la galay loona baahan in loo diyaar garoobo sidii shacabka loo gaarsiin lahaa nabad xasilooni iyo dib u heshiisiin Rawda Cabdi Xasan Somali News TV magaalada Muqdisho